بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. عشر كانوا مانتو حكب اللابنا يا آيات تضباطا يشانات سورة البقرة كمدة عن كجرني آياته كهدلاي ريبن إسرائيل نعموينك إلهي أسيي sidii nicmooyinkaas ay u gudan waayeen dabaa'icdooda iyo sida ay ahaayeen aayadan afatadmacuuna an yu'minu lakum ay ku soo degtay nimankii reer Madiina ee ansaarta ayaa waxay berigi hore ay heshiis iyo gaashaanbuur la ahaan jireen qolyihii yahuudda ah ee Madiina deganaa waxay jeclaysay markii maadaama ay taxaal faro ahaayeen islaamka qiimaha badan markii uu yimid oo ay iyagu islaameen inay yahuudaas ay hore gaashaanbuurta u ahaan jireen inay soo islaamaan laakiin yahuud xaqdi ku jira daraadii way diideen islaamka marka waxaa la sabirsiinaya oo laga sabirsiinaya nimankaas jecel inay ku soo islaamaan yahuuda dabeecadeedu inaysan saas ahayn oo ayna soo islaamaynin marka inaysan isku daalin ayaa loo tilmaamaya ilaahay marka wuxuu leeyahay afatadmacuuna ma waxaad damcaysaan oo rajo ay idinkaga jirta ayuhal mu'minuuna ma waxaad rajaynaysaan an yu'minuu lakum inay idin rumeeyaan qur'aankan iyo nabigan inay idin rumeeyaan oo warkiina ay yeelaan miyaad yahuuda rajo ka qabtaan waqad kaana fariiqun minhum walxaal qad kaana ayagoo ay ahaan jireen fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ah yasmacuuna kuwa maqla kalaam allahi ilaahay hadalkiisa uma markaas kadib yuxarifuunahu ay bedeli jireen ama ay qalloocin jireen min bacdi maa caqaluuhu markay fahmaan kadib wahum ayaga oo yaclamuun og arrintaas yani dembi inay tahay oo aad u weyn waxaa lay mu'miniinta yani marajaad ka qabtaan nimankan inay warkiina yeelaan idinka oo hadda ay idin rumaysnayn oo ay idin haystaan dad oo carab ahoo waxba kala aqoonin oo ayagana ay soo haystaan dad ahlu kitaab ahoo cilmi leh inay hadda idinka warkaan u sheegtaan oo waxyi baa soo degay oo rasuul baa la soo diray oo rasuulkaas anagu naga soo dhexbaxay yahuud hadaa tihiin kaalay rasuulka naga rumeeya iyo waayahay sidaas maad rajo ka qabtaan nimankana iska dhaaf idinka inay warkiina maqlaane nabiyullaahi muusa oo ayaga loo soo diray oo ay yaqaanaan oo la jiray oo waxyi ilaahay ku soo degay oo ilaahay uu la hadlay arrintii ilaahay xaggiisa uga keenay ayay maqlayaan oo nabi muuse uu sheegi jiray markay dhageystaan oo warkii ilaahay oo nabi muuse loo soo dhiibay oo waxyiga ahaa ay maqlaan oo fahmaan ayaa sidii uu ahaa si aan ahayn ayay ka dhigayaan dad marka kitaabkoodiiba saas u galay idinka kitaabkiina iyo rasuulkiina inay rumeeyaan meed rajo ka qabtaan way macnaha nimankan dabeecadoodaba waa dabeeca isdabamarin ah oo yacni aan toosnaanta aan jeclayn marka isku daalinin idinka mu'miniin hadduu ilaahay idinka dhigay intaad ilaahay ku mahadisaan kuwaana shartoodan iska ilaaliya waxbana isku dhabar jebinina maxaa yeelay yani dabeecadooda ayaa saas marka waxaa leeyahay ma waxaad rajo ka qabtaan inay idin rumeeyaan afatadmacuuna ma waxaad damcaysaan maxaad rajaynaysaan an yu'minu lakum inay idin rumeeyaan waqad kaana asagoo ahaa fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ah koox ahlu kitaabkan yahuudda ka mid ah yasmacuuna waxay maqlayeen kalaam allahi ilaahay kalaamkiisa ilaahay waxyigiisa oo nabi muuse u keenay ayay maqli jireen oo nabi muuse u sheegi jiray uma markaas kadib yuxarifuunahu way qalloocin jireen ama way leexin jireen min bacdi maa caqaluuhu markay fahmaan kadib wahum ayaga oo yaclamuuna arrinkaas sida u xun tahay ayagoo og yacni in la taxriifiyo ilaahay waxyigiisa oo si xun loo fasiro ayagoo og inay dembi tahay ayay dembigii ku dhiiran jireen oo u qasdi jireen dad dabeecadooda ay sidaas ay tahay inay hadda idinka idin rumeeyaan ma taasaad rajo ka qabtaan way macnaha rajaynina waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna aayadan kalena waxay ka hadlaysaa madiina markii la tegey oo mu'miniintu ay xoog ay yeesheen waxaa soo baxay arrin aan berigii maka ay mu'miniintu joogeen aan jirin daahiradaas ama muuqaalkaas waxaa la yidhaahdaa waa nifaaq ama munaafiqnimo ayaa soo baxday dad afkan iimaan ka sheeganaya oo kelimadii ku dhawaaqaaya laakiin gudaha aan waxba ka rumaysnayn oo yani laba shaksi ah yani shaksina afna si uga hadlaa af kalena si kale ayuu uga hadlaa munaafiqiintaasi yani kuwa carabta ahaa ee madiine joogayna qaar ka mid a ayaa sidaas noqdeen kuwii yahuudda ahaa ee madiine joogayna qaar ayaa nifaaqaas ayagana la yimid oo sida munaafiqiintan kale ay u dhaqmaan oo kale ayay yahuuddan kuwooda nifaaqaynayana ayay iyagana u dhaqmaayeen yahuudda marka munaafiqiintooda habdhaqankooda sida uu ahaa ayay aayadahan inoo tilmaamayaan ilaahay wuxuu leeyahay waidaa laquu haddii ay la kulmaan munaafiqiinta oo yahuudda ah aladiina aamanuu kuwii rumeeyey ee mu'miniinta dhabta ahaa markii yahuud
yahuudaas kuwada munaafiqiinta ah ay mu'miniinta la kulmaan qaaluu waxay dhahayaan munaafiqiintaas yahuuda ah aamanna waan rumaynay mu'miniin haddaad tihiin diintan idinku soo degtay rasuulkan idiin soo diray waa run annagana waan ku waafaqsannahay saasay afka ka dhahayaan wa idaa khalaa hadduu gaar noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaar kale hadduu u gaar noqdana oo ayaga keligood ay meel isugu tagaan oo aynay markaasi la jirin mu'miniinta oo yahuud oo keli ah ay meel isugu imaadaan oo isu gaar noqdaan oo keligood ay qol isku soo xiraan oo ayaga ay yani meel iskula gaar noqdaan wa idaa khalaa hadduu gaar noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaar kale qaaluu waxay dhahayaan ayagii ayaa iscanaanaya yahuudda ahaa qaaluu waxay dhahayaan atuxadithuunahum miyaad uga sheekaynaysaan mu'miniinta bimaa fataxa allahu ilaahay wixii uu furay calaykum korkiina nimankan oo mu'miniinta ah marka aad leedihiin waan rumaynay oo kitaabka anagii hore ee tawreed ah ayaa sidaan lagu sheegay oo kitaabkiina inuu xaq yahay ayuu kitaabka anagii sheegaya marka aad arrintaas qiranaysaan fatxigaas ama furitaankaas ilaahay idiin furay cilmigaas uu idin siiyey miyaad u sheegaysaan mu'miniinta oo markaas haddaad u sheegtaan waxaa dhacaysa liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan oo dooda ay idinka helaan bihi asaga cinda rabbikum rabbigiina agtiisa afalaa tacqiluuna caqli malihidin miya way iscanaanayan waxay leeyihin haddii mu'miniinta markaad la kulantaad aad dhahdaan waan idin rumaynay oo waxa aad sheegaysaan waa sax aad tidhahdaan ood u qirtaan diintooda inay xaq tahay hadhow ilahay agtiisa markii la tago markii dood la furo doodda way idinka heli doonaan oo waxay idin dhahayaan nimankan ayagoo qirsan oo og arrintan inay xaq tahay oo ay noo sheegeen qur'aankan inuu xaq yahay oo ay yidhaahdeen waan rumaynay ayay haddana gaaloobaayeen hadhow markii sidaas horta ilahay hortiisa isaas ka yidhaahdaan garti waa laidinka helaya waxaa lee war idinku soo idinka yidhi maha waan rumaynay oo waxaan aad ku taagantihiin waa xaq soo idinka yidhi ma aha haa waan nidhi waayi haddana gadaal maxaad uga gaalowdeen marka maxaa saas yidhi caqli marid miya ruux asaga yani xujada isku oogaaya yani ruux gartiisii yani asaga si ula bixi lahaa aan garanaynin ee dadka kasoo horjeeda garta siinaya kaas caqli ma qabay dheheen oo waxay rabaan inay yidhahdaan haddii hadda aan inkirno oo mu'miniinta markayna weydiiyaan war qur'aankan iyo nabigan xaq miya idinka ahlu kitaab bal noo sheega arrinku sida uu yahay haddaad inkirtaan oo tidhaahdaan maya kitaabkii tawreeda markaan ka fiirinay arrintan wax jira ma aha kitaabka aad sheegaysaanna wax xaqa ma aha rasuulka lasoo dirayna wax xaq ma aha haddaad sidaas tidhahdaan hadhow ilaahay agtiisa markii lagu doodo wax garla idinkaga helaayo oo aad qirateen ma jirto oo waxaad ku doodaysaan annaga marka hore markayna weydiiyaan arrintan ma xaq baa markayna dhahaan waan diidnay waan inkirnay xaq maaha ayaan lahayn markaynuusan xaq ahayn ayaa noo cadayd saas daraaddeed nimankan wax xujo oo agtaanada ay ku leeyihin ma jirto laakiin markaad u rumaysaan oo tidhahdaan arrinta aad ku taagantihin waa xaq haddana aad diidaan ood nifaaqaysaan hadhow ilahay agtiisa markii la tago waxay idinku qabsanayaan soo idinkii noo sheegay ma aha wixii adugu aad sheegteen hadhow ma inkiri kartid marka xujadaha isku oogina inkiraad le usoo istaaga mu'miniinta war qur'aankan xaq miya maya xaq ma aha halkaa le jooga laakiin haddaad nifaaqaysaan caqli la-aantiina ayay muujinaysaan inkira si ilaahay agtiisa hadhow yaan gar aan la idinkaga helin bal fiirsay u fikiraan iyo caqli xumadooda waxay marka waydaa laqu aladiina haddii ay la kulmaan aladiina aamanuu kuwii rumeeyey haddii yahuudda munaafiqiinta ahay mu'miniinta la kulmaan qaaluu waxay dhahaan yahuuddaas munaafiqiinta ahi aamanaa waan rumaynay kitaabkiina iyo rasuulkiinaba waan rumaynay wa idaa khalaa markay gaar noqdaan bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaar kale ay u gaar noqdaan oo yahuud keli ay isku soo haraan qaaluu waxay dhahayaan munaafiqiintaas yahuudda ah atuxadithuunahum mu'miniinta ma waxaad uga sheekaynaysaan bimaa fataxa allahu ilaahay wixii uu furay calaykum korkiina liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi arrinkaas aad sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa si ay idinkula doodaan afalaa tacqiluuna caqli malihidin miya awalaa yaclamuuna miyayna ogeyn kuwa saa u fikiray fikirkaan xun kuwa ku fikira miyayna ogeyn ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxa ay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujinayaan bal caqli xumadooda yani waxay iska dhigayaan haddii ay inkiraan oy dhahaan qur'aankan xaq ma aha in hadhow xujada ayaga ay raaci doonto oo la dhihi doono dadkan wayba inkireena maxaa lagu haystaa gudahana way ka aaminsan yihin way og yihiin qur'aankan inuu xaq yahay rasuulku inuu xaq yahay laakiin sheegitaankii ay banaanka ku sheegi lahaayeen oo mu'miniinta u sheegi lahayn ayaa xaasidnimo ku jirta daraadda ayay u diidayaan ilaahayna wuu og yahay inay og yihiin xaq inuu yahay say u haystaan wuu og yahay marka waxay u malan ayagu hadday afka ka sheegaan keliya inay xujadu ku oogmayso laakiin haddayna afka ka sheegin oo ay iska inkiraan arrintii inay og yihiin inay xaq tahay oo gudahana ay ka og yihiin inay xaq tahay ilaahay inuusan arrintaas ogeyn oo ilahay inay saa ku khiyaani karaan ayay la tahay dad yani caqli le ma ah awalaa yaclamuuna miyayna garanaynin ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxa ay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujinayaan wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya haddii culimadoodii yahuudda kuwoodii cilmiga lahaa ee axbaarta la dhihi jiray ay saa u fikireen oo markay mu'miniinta la kulmaanna waan rumayn intay dhahaan markay ka tagaanna ay yani iscanaananayeen oo haddana la yidhi arrintaas markay ku dhaqmaayaan miyaysan ogeyn ilaahay inuu waxay kor u dhahaan iyo waxay hoos u dhahaan buu og yahay culimadoodii markii saas loo dhaleeceeyey oo ay kutusayso yani dabeecadooda inay xumaatay nimankaas iyo haddana waxaa laga hadlayaa kuwooda caamada ah culimadii hadday saa u xumaatay caamadii xaggay joogaan way macnaha caamada yahuudda kuwa aan culimada ahayn ee yahuudda ah ayaguna sida ay aaminsan yihiin iyo say u dhaqmaayaan ayaa ayagana la tilmaamaya markaasa waxaa la yidhi wa minhum waxaa ka mid a yahuudda oo yani kuwa yahuudda ah kuwii madiine joogay iyo yani yahuuddaas meel kastoo joogaanba waxaa ku jira wa minhum waxaa ka mid
yidhahdaa ummiyuuna kuwa aan waxba aqoonin waxna aan qorin waxna aan aqrinin ummiga waxaa la yidhahdaa alladii laa yaqra'u walaa yaktub ka aan waxna aqrinaynin waxna aan qoraynin haddii wax loo soo yeeriyana ma qori karo ma farbaranin haddii yacni wax meel ku qoran akhri la yidhaahdana ma aqrin karo yahuuddaas waxaa ka mid a marka kuwo caamo ahoo farta aan aqoonin wax meel ku qoran aan aqrin karin haddii loo soo yeeriyana aan qori karin wa minhum waxaa ka mid a ummiyuuna kuwa aan waxba aqoonin ayaa ka mid a yahuuddaas laa yaclamuuna ma yaqaanaan alkitaaba kitaabkii la siiyey ee tawreedaha kama yaqaanaan ilaa waxay ka yaqaanaan un amaaniya yididiila been ah yididiila bas yaqaanaan yididiila macnaha waxay tahay waxaa culimadooda ayaa waxay akhrisa waxay ku yidhahdeen mar haddiiba aad noqoteen yahuud haddaad noqoteen ilaahay agtiisa wax badan ayaa idin yaalla ilaahay wuu idin jecel yahay inaad yahuud tihiin ayaabaad jannada ku gelaysaanba marka uma baahnidiinba inaad camal fashaan kitaabka tawreeda ayaa saas ku taala ayay dhahayn yahuudnimo in lagu badbaadaayo ayay ka dhaadhiciyeen caamadii waxay iska qaateen marka inayna camal falaninba oo maxaa la camal falan laadihin annaga camal maxaan uga baahannahay yahuudnimaaba noo taalo oo kitaabka tawreeda wuxuuba sheegay inaan jannada iska gelayne marka maxaa isu dhibaynaa marka jannada ma waxaa lagu galaa abtirsasho maa lagu galaa jannada halkaasaan kasoo jeedaa miyaa janna lagu galaa maya camal ruuxu uu samaystay habku u dhaqmay ayuu ilaahay ku abaalmaray ruuxa ayagu waxay haysaa marka yididiila been oo ah inaan yahuudnahay keli ah yaaba nagu filan si aan jannada u galno waxaa marka laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka ma yaqaanaan ilaa amaaniya yididiila ma ogiin taas ilaahay ma yeela marka yahuudna laga yeeli maayo innagana naga yeeli maayo yacni anigaa abtirkaygaa sidaas ah waxba ma camal falanaayo waxaan ku moodi doonaa inaan halkaas ka soo jeedaayo dadka qaar waa laga yaaba inay fikraddaas ay kusoo dhacdo oo dad qaar waxaa arkaysaa dhal culimo ayaan nahay meeshaasaan ka soo jeednaa jannada waa iska diyaar markaasu xumaan iska samaynaa war xumaatan ma iska dhaaftid aniga waalidkaya fiicnaan jiray awowgayaan hadhow ku moodi doonaa awow meeshaan laguma moodo nabi wuxu sallallahu alayhi wasallam man badaa bihi camalu qofkii camalkiisa uu dib u dhigo adduunka markuu joogo wuxuu soo camal fashay qofkii uu dib u dhigo oo yacni jannada geli waaya lam yusric bihi nasabu nasabkiisi meesha uu ka soo jeedaayey yani ma dedejinaayo horay uma wadaayo waxaa kaloo jirtay yahuuddana markay amaaniyada ama yidiladana ay sheegeen inay yihiin yahuud ay yihiin kitaabka tawreedaha lagu sheegay inay shacbullahi almukhtaar yihiin oo jannada iska gelaayaan ummaddeena qaar ka mid a iyagana waxay ku faaneen waxay yidhahdeen annagana ummatu maxamedana la yidhahdaayo inaan ummatu maxamed ka dhalannay ayaan jannada ku gelaynaa aayad baa soo degto ilahi wuxuu leeyahay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suu'an yujza bih arrinku ma aha sida aad yididiilo idinku u haysataan oo inaad ummatu maxamed keli ah idinkoon camal falanin inaad ummaddaas yacni aad ka dhalateen aad janno ku gelaysaan arrinku sidaas ma aha walaa amaaniyi ahli lkitaab dadka ahlu kitaabka yididiiladooda ayaguna in ahlu kitaab yihiin inay janno ku galaayeen arrinku ma ahe man yacmal suu'an yujza bih qofkii xumaan sameeya waa laga abaalmarin doonaa ama yahuud ha ahaado ama ummatu maxamed ha ahaado yacni mas-uuliyadii waa shaksi oo ruux walba wuxuu shaqaysa ayuu ilaahay hortiisa ayuu ka helayaa marka yididiilo halkaasaan ka soo jeedaayey wax ay taraysa male caamada yahuuddana waxyaabaha halaagay waxaa ka mid ahaa inay yidiiladaas ku hadlaynaayaan imaamkii la dhihi jiray imaam xasan albisri yaa ummaddeena qaar ka mid wuxuu ku arkay tilmaamahaas wax u eg ayagoon camal falaynin haddana inay isku hadleeyaan ummatu maxamed aan nahay oo jannada waan iska gelaynaa iimaankaas aan rumaynayn ummatu maxamednimada ah ayaan ku moodaynaa markaasa wuxuu ku yidhi imaam xasan albisri laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli iimaanku maa wax la yidiilo wax isku qurxiya ma aha walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal laakiin waa wax qalbigana ku weynaado oo ku sugnaada camalkana looga run sheego wa ina aqwaaman kharajuu min addunya walaysat lahum xasana dad ayaa adduunyada ka tegay ayagoo wax xasana aan shaqaysanin wa qaaluu waxay yidhahdeen nuxsinu danna billahi wakadabuu ilaahay ayaan malada u wanaajinaynaa oo annaga ummaddaasaan nahay oo jannada waan iska gelaynaa ayay yidhahdeen beenayna ku sheegeen low xasanu danna la xasanu alcamala hadday malada hagaajin lahaayeen oo run ay ka tahay maladaas fiicani camalkoodana wuu fiicnaan lahaa ruux camalkiisu uu xun yahay niyadiisu ma fiicno niyada hadday fiicnaatana camalkuna wuu fiicnaadaa marka yididiilo been ah ayay isku hadleeyeen yahuuddu inay jannada ku galaayeen ummatu yahuud ayaan nahay taasna wax anfacaysa maaha marka waxaa wa minhum waxaa ka mid a yahuudda ummiyuuna kuwa aan waxba aqoonin oo waxna qorin waxna akhrinin laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan ka aqoonin kitaabkii tawreeda kama yaqaanan leanna wax ma akhrin karaanba kitaabkii tawreeda axkaamta ku taalay niman wax kicinaayo oo hortooda haddii lasoo dhiga xataa akhrin kara ma aha laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka kama yaqaanaan ilaa amaaniya yididiilo unbay ka yaqaanaan wa inhum maahum ma aysan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa malaynaayo unbay ahaadeen arrinkan waxay u qaateen maladaasi inay jannada iskaga galayaan inay yahuud yihiin marka waa malana wax ma tarto ina danna laa yuqni min alxaqi shay-an malo ay saas ayay u maleeyeen marka malo yani saasay noqon doontaabaa laga yaaba wax ma taraysee wax la hubo ruuxu inuu hadda shaqaysto ayaa la rabaa dabaa'icdooda ama acmaashooda xunxun ayaa la sii waday waxaa la yidhi yahuuda fa weylun cadaab ayaa liladiina kuwii u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabka qoraayeen biaydiihim gacmahooday ku qoraayeen uma yaquuluuna waxay dhahayeen haada kani waa kii iyagu ay qoreene min cindi illaahi ilaahay agtiisa ayuu ka yimid liyashtaruu si ay ugu gataan bihi asaga hamanan qaliilan lacag yar oo adduunya si ay u siistaan fa weylun cadaab ayaa lahum ayaga u sugnaaday mima katabat aydiihim gacmahooda wixii ay qoreen wa weylun cadaab ayaa lahum ayaga u sugnaaday mima yaksibuuna waxay kasbanayaan yahuuda yani waxay sameeyeen taxriif yani kitaabkii ilaahay uu yidhi ilaaliya oo lagu ogaa inay xifdiyaan
توراة والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أي تحريفين ويقلوعيين ومركاسي قعنتوا ذي كقرائن آيات دي أما حكمك إلهي وسود جي توراة يا انتي بدلان أي متك لكو بدلان أي قرآن إلهي مهدي سنة كتاب كان القرآن إلهي يعني ضدك إنا أيقو الساس وحفظيان وسيدي كتابك التوراة اللي حفظنا علماء اللي وقوجها إلهي موسى لهنا إلهي وحوري كتاب كان أنا إلى لنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما عد wax ku dari karta ama cid wax ka dhimi karta kitaabkeena male ilaahay ayaa xifdinaya kuwa laakiin kitaabkoodii maadaama ayaga loo dhiibo leeyahay xifdiya waxna way ku dareen waxna way ka dhimeen way taxriifiyeen kuwaas marka kitaabka asaas yeelay oo hadana been abuurasho xoog lay sameeyaan wixii ayaga ay qoreen ayay ilaahay u nisbaynayaan marka meel khatar waxa jirta dadku ay ku halaagsamayaan oo ah يعني qofku wax yani aayad quraan aan ahayn xadiis nabina aan ahayn oo meel uu saara aan lahayn oo laga yaabo ra'yigiisa inay tahay inuu ilaahay u tiiriyo ila waaka ki ilaahay kaas waa khatar ayay leedahay waxa raba aayadi waa la yaqaana xadiistina waa la yaqaana fasirkooda ruux markuu fasiraayo ama markuu ijtihaad sameeyo oo ra'yi oo soo istinbaado inuu yiraahdo aniga ra'yigayga oo aan ka fahmay aayada ama xadiisku waa sidaas laakiin ra'yigiisa inuu dadka diin uga dhigo oo uu yiraahdo ra'yigayga ba ki ilaahay ah waa khatar waa sifadan yahuuda lagu halaagay oo ay ku halaagsameen naarta ay ku galeen way macna marka culimadeeni hore asxaabtii ridwaanu alayhim Umar iyo Abu Bakr iyo yani markay ra'yi ijtihaad ay keeneen waxay dhigeen hada ma ra'a Abu Bakr hada ma ra'a Umar saasay la tahay Abu Bakr saasay la tahay laakiin ra'yigaaga markaad ka dhigto ki ilaahay inuu yahay oo ki ilaahayna uusan ahayn iftira ayuu noqonayaa qof ilaahay ku been abuurtayna meel xun ayuu naarta ka galayaa yahuudana saas ay ku halaagsameen fawaylun cadaab أي للذين كوي أصلنا يكتبون الكتاب كتاب قرآن بأيديهم قعموه ثم يقولون دهاين هذا كان أوكي أي قرآن من عند الله إلهي أبتيس أي كيمت وحين سأوا يلاين ليشتروا به سأقوا قطان ثمنا قليل العجر وضدك أغسران ووحن دين أهين أيدك الدين وقدقان سأي يعني وحغير الدنيا وهلان فويل العذاب أي لهم أي أصلنا ذي مما كتبت أيديهم قعموه يعني وحي قعموه أي قرتين وويل العذاب أي لهم أي أصلنا ذي مما يكسبون وحي كسبناين وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة يهودا يعني وحيابي اسكبع العيان أي وحبك الجيرين أي وحاكم ذا وحي لذا أنه وحانا شعب الله المختار إلهي بأن دورتي ساس درادي الدنبي عن قلنا وحامن حصوصنا هاي مركي الدبيق أنا عابدني أو نوي موسى ونقمقنا انتي مع الموت الدبيق أنا عابديني إن نارنا لجريه ولا جيابا انت أصبحي كدن بيانا دنبي كلمة بالليهم بوانا لورد عفيب مركي اسكبع العيان يعني إن دنبي بوسن قبنين تاسنا واحد جرى معه يعني روحي دنبي سماية دنبي جوالو قرايا وقالوا وحي لذا لن تمسنا النار نارتنا متعبنا يسو إلا أياما مالمو معدودة أو لتريم أوهي نار دين لجريو وليين كوار ماينو حتى مالمان كجرينا وانا لغصب بحنايا لن تمسنا النار نارتنا متعبنا يسو إلا أياما معدودة مالما لتريم أوهي قل وحاد كتر هذا نبيو اتخذتم وحاد يالتين عند الله إلهي أكتيسة مياد عهدا بلنك سميستين إلهي إنو نارت انتو مالما إذن جريو كدب من إذن كسوب بحنايو ما بلن إلهي أكتيسة إذن تعالى أو أد إلهي أكتيسة لغتين أو أد هشيس كوغشين أو ورقضاء أد كلا قرتين مياد جرة قل وحاد كتر هذا اتخذتم وحاد سميستين موحاد يالتين عند الله إلهي أكتيسة مياد عهدا بلنك سميستين أو فلن يخلف الله إلهي أسنبرنين أما أنكبحين أما أنقوب يالين وعده عهده يعني بلنتيسي ما إلهي أكتيسة أيها وحاد كسميستين بلن أو فلن يخلف الله إلهي أسنبرنين عهده بلنتيسي بلنتي وإذن لقري إلهي إنوسا إذن كبحين لأن إلهي بلن أقلي كما بحين ما بلن وحاد هيستان إلهي أكتيسة إذن تعالى أو إنا إذا النار تكوارين oo maalmo la intii leedin galeedin ka soo bixinaayo heshiiskaas miyuu ilaahay agtiisa ma idin yaala oo ilaahay heshiiskaas uu siin kaga baxaynin falan yukhlifa Allah ilaahay usan burin caado yaani balantiisa am taquluna ma waxaad leediin ala Allah ilaahay korkiisa ma la ta'lamuun waxaydan ogeyn ilaahay inaad ku been abuuranaysaan marka aad leediin jannada iska galeeyna marka aad leediin balan baa ilaahay agtiisa noo taalo naarta kuma waarayno yaani xageed ka keenteen heshiiska aad ilaahay la gasheen aad kala saxeeteen aaway heshiis meesha ma yaale arrintan waa arrin been abuurasho oo ilaahay aad ku been abuuranaysaan marka saas daraadeed qofka mu'minka رب إلهي يعني إنه سنكون أبورني إلهي إنه كعب صدو وح يعني إلهي أوسن يعني دهن وإنه سن إلهي أنتيرني يعني حكم أوسن إلهي رين وإنه سن أسجى وحكم إلهي أوسن دهن هديك لو إحنا قلنا يسا إلهي إنه وفق أوسن أوين سلا إنه قندونه إنه كشيء بين أبورشنا إنه قطه وفق بين أبورتنا إلهي عذاب أيوجرنا يا أم تقولون على الله ما لا تعلمون إلهي كل كسم حد كل ذي واحدا أقول بلا من كسبت سيئة واحدة بخطيئة واتمرك حقيقة أرنت وات حقيقة أرنت يجزها يا أبال من تلس أبال مرين دونه يهودني ما هنا جنة لو ما
galaayo ummatu muhammad nimaan ahayna janno laguma galaayo yani aniga aabahay ayaa fiicnaan jiray janno laguma galaayo abtirkayga ayaa meel fiican maran arrinku ma ahe almas'uuliyatu shakhsiyya mas'uuliyadu waa fardi waa qof walba iyo wuxuu kasbado maalinta qiyaamaha ahna ruux walba wuxuu soo shaqaysto ayaa la hor dhigay ma ogi si jamaaci dadka looma xisaabinayo oo lama dhahayo reehibel aaway ama kooxibel aaway xagga istaaga markii xisaabtiina la isku wada dardaray kulligiin waad fiicnaateen qaar xun way idin ku jireen laakiin qaar xun arrinta isku xambaar ma aha isku qaad ma ah qof walba keligii way wa kulluhum aatihi yawma alqiyaamati farda qof walba ilaahay keligii ayuu la kulmi doonaa ama u imaan doonaa markaas waxa li bala iska dhaaf arrinku inuu siyaas yahay in arrinku ay tahay maxay ilaahay agtiisa ballan ii taala oo naarta kuma waarayno ama shacbullahi almukhtaar ayaan nahay ama arrinkaas iska dhaafe bala iska dhaafe man qofkii kasbada shaqaysta sayi'atan xumaan cidii samaysa wa ahaadat ay koobto bihi asaga khadi'atu dambigiisu oo koobo wa ahaadat bihi khadi'atu dambigiisu oo koobo yani dambiga waxa laga soo qaadaya qofku markuu yani dambi yani oo galo waa dambigi ayaa sidii ciidan soo hareereeyay oo kale dhinacyada kaga yimid oo kale ayaa dambigi ayaa dhaxda yu istaagi doonaa marka qofkii dambi kasbada bala man kasaba sayi'atan qofkii xumaan sameeya wa ahaadat bihi khadi'atu wa ahaadat ay koobto bihi asaga khadi'atuhu dambigiisu koobo oo dambigiisa dhaxda u gala oo dhinac walba dambigiisu uu ka soo hareereeyo oo dambigiisu uu bato fa ulaa'ika kuwaasi asxaabun naari naarta asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayagu fiihaa khaaliduun ayay ku waaraayeen naartay ku waaraayeen yani qofkii dambigiisu u bato meeshuu doonaya ka soo jeedo shakhsiyadiisa haddii markii loo xisaabiyo dambigiisu u bato jazihiisu waa ahlunaar waay macnaha abtirna ma anfacaayo meel kale wax u taraysana ma ay jirto dhanka kale haddii la sheegay qofkii dambigiisu uu batay meesha uu ku dambaynayo qur'aanka waxaa manhaj u ah labadaba inuu dadka u caddeeyo oo qofkii wanaagsanaadana abaalkiisu muxuu yahay walladina aamanuu kuwii rumeeyey wa camilu saalixaati camal wanaagsan sameeyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayagu fiihaa jannada dhexdeeda ayay khaaliduuna ay ku waaraayaan marka qadiyada khasaaraha iyo qadiyada badbaaditaanku ilaahay manhajkiisa iyo diintiisu saasay u caddaysay ciddii dembi samaysa dembigeeduna uu koobo ama uu hareereeyo oo yani dembigeedu uu bato waa ahlu naar meeshaas waxaa layidhi man ayaa layidhi qofkaasi marka zamankuu dooni ha joogo qabiilkuu dooni ha ahaado meeshuu dooni ha ka soo jeedo mustawihiisa iyo meesha uu yani jagadiisu ha la ekaato cid alla ciddii dembi samaysa oo dembigeedu uu bato ahlu naar ayay noqonaysaa qofkii wanaagsanaadana camal wanaagsanna la yimaada kuwaas asxaabuljanna ayay ahaadeen jannada ayayna ku waaraayeen waid akhadnaa miithaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah ayadan waxay ka hadlaayaan yani nimankan markay xaq sheeganayaan yahuudda ee madiine degan oo ay isaga dhigayaan dadka inay ayagu xaqdoon yihiin oo kitaabkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay ay beeninayaan oo iska dhigayaan wax diin ku dhaqmaaya inayna diin ku dhaqmayna la idin tusin doonaaye bal horta wixii ayaga loo diray ee markii kitaabkii tawreed ahaa nabi muuse uu ula yimid wixii loo diray ballantii la isku ogaa iyo say u dhaqmeen aan ogaano horta maxaa laga rabay kabacdina waxay inoo imaan doonta wixii laga rabay inay ka soo baxeen iyo in kale haddii kitaabkoodii dad yani ku camal fali waayey ay noo caddaatay inay yihiin inay hadda yani iimaan noo sheegtaan oo xaq eega inay ku taagan yihin ay sheegtaan ma ku jirta waay macnaha rasuulkoodii oo la jooga ayay say u dhaqmi jirna loo sheegayaa rasuulkoodii oon la joogin oo fatra dheer ay ka soo wareegtay waxoodu inay un tahay bas yadadiilo iyo kitaab ayagu ay qorteen oo ay taxriifiyeen ba meesha yaalle yani sidii xaqiiqadeed ma hayaan sidii xaqiiqadahayd ee lagu ogaa ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya marka ilahi wuxuu leeyahay waid akhadnaa miithaaqa bani israa'iil waid waqti xus akhadnaa aan qaadnay miithaaqa bani israa'iila reer banu israa'iil ballantoodii laa tacbuduuna ila allah ballantaas ilaahay uu reer banu israiil ka qaaday oo uu kula ballamay oo uu yidhi saas yeela waxay ahayd waxaa looga bilaabay laa tacbuduuna ma caabudaysaan macnaha caabudina ila allaha ilaahay ma ogiye ballanta koobaadi waa altawxiid waxdaaniyat ullahi subxaanah ilaahay inuu waaxid yahay oo usan shariig lahayn yani reer banu israiil saasaa loo diray ummad walba oo taariikhda soo martana saasaa loo diraayey maxaa yeelay ilaahay waa keligii koonkan asagaa abuurtay cid in lala wadaajiyo uu ogol yahay ma jirto marka reer banu israiil ballanta aan ka qaadnay ee inay fuliyaan laga rabay mabaadi'da kitaabkoodii loogu sheegay waxay ahayd laa tacbuduuna ila allah ma caabudaysaan ilaahay ma ogiye lama ogolo cibaado inaad siisaan cid kale oo ilaahay aanay ilaahay basa cibaadada iskale laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allah ilaahay ma ogiye waxaa kaloo ballanta laga qaaday reer banu israiil ka mid ah wa bilwaalidayni ixsaanan ay waxaan amarnaahum waxaan farnay yani an yuxsinuu ila alwaalidayni ixsaanan waxaan farnay wa bilwaalidayni waalidiintana ixsaanan ixsaan u sameeya ayaan farnay yani diimaha oo dhani markay yimaadaan ummad markii la hagaajinayo ama la tarbiyaynaayo xaqa ilaahay markii loo sheego xaqa ku soo xiga waa xaqa waalidka maxaa yeelay ilaahay waa allihii dadka abuuray waalidkana waa sababtii ilaahay uu abuuritaanka dadka meeshu usoo marsiiyey waa macnaha ruux walba waalid ayuu ka soo jeedaa marka
asalkii laga soo jeeday in yacni ixsaan loo samayn waayo waalidkuna markii ilmuhu ay yaraan ixsaan uu soo sameeyey taas meesha kuma jirte diimuhu waxayna farayaan waalidka in ixsaan loo sameeyo reer banu israa'iil waa ka kitaabkii tawreedaha ballantii looga qaaday waxaa ugu horreeyey waxdaaniyatullahi kow wa bilwaalidayni labada idin dhasheen ixsaan u sameeya wadil qurba qaraabadan ixsaan u sameeya wal yataama agoontana u sameeya wal masaakiin masaakiintana u sameeya waqulu waxaad dhahdaan linnaasi dadka xusnan wanaag dhaha diimuhu waxay weligood u socdeen hadal wanaagsan in dadku iskula hadlaan in la is-aflagaadeeyey ma banaano caytintu waa mamnuuc way reeban tahay yani wax laga faa'iidaya ma jirto dad la caayo yani qofka mu'minka waxaa lagu yaqaanaa qof edeb iyo xushmad iyo akhlaaq leh carabkiisu uu toosan yahay waxaana keenaya carabka toosan qalbiga toosan ayaa keena qalbigu hadduu tooso carabkuna wuu toosayaa alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb qalbigu hadduu xumaadana carabka iyo xubin walbana way xumaanaysaa reer banu israa'iil waxdaaniyatullahi kadib waalidku ixsaan loo sameeyo qaraabada oo la xiriiriyo agoonta ixsaan loo sameeyo masaakiinta oo loo naxariisto kadibna habka dadka loola hadlaayana inaan dadka la caayin ee waquluu linnaasi dadka u dhaha xusnan hadal wanaagsan dhaha hadal aflagaada aan lahayn oo macaan dadka ku dhaha waaqiimu salaada ooga salaadu dadkii horena waajib ayay ku ahayd soonkuna sidoo kale inagana waajib ayay nagu tahay waaqiimu salaada ooga wa aatu zakata zakada bixiya ballantii reer banu israa'iil laga qaaday waa akhlaaqdaas fiican mabaadi'daas aadka u qiimaha badan ee ilaahay xuquuqdiisana ka bilaabata xuquuqda dadkana hadba si loo soo kala dhow yahay si loo kala tabardalan yahayna la isugu naxariisanayo dadka markii lala hadlaayna hadal wanaagsan la dhahayo mabaadi'daas ayaa diintaas lagu sheegay ballantaasna laga qaaday diintaas quruxda badan ee fiican ee mabaadi'daas ah habkii reer banu israa'iil ay ula dhaqmeen maxaa la yidhi marka uma markaas kadib tawallaytum waad jeedsateen ilaa qaliilan in yar oo minkum idinka mid ah ma ogiye in yar ma ogiye in dadka intooda badani arrintii la isku oga oo dhan way diideen taariikhduna waan saasoo shaydaan ayaa shaqaystayoo dadka wuu baadiyeeyaa marka inta badan wuu dhumiyey uma tawallaytum waad jeedsateen ilaa qaliilan in yar oo minkum idinka mid ma ogiye wa antum idinka oo mucriduuna jeedsanaysiin ayaa saas yeesheen haddaad reer banu israa'iil tihiin marka ballantii ilaahay kama idin soo bixin ayaa la yidhi darsigeenu maanta intaasuu ku ogyahay wasala allahuma calaa sayidina maxamedin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.